agoonta itaalka daran ammaaninugu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno munaasabad lagu furay iskoolka agoonta ee maamo orfan ee magaalada Caabudwaaq munaasabadani lagu furay sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee iskoolka hoose dhexe ee maamo orfan ee magaalada Caabudwaaq oo ah dugsi ay waxbarasho iyo xanaaneyn ay ka helaan caruurta agoonta ay ku nool magaalada Caabudwaaq ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gudoomiyaha waxbarashada gobolka Galgaduud ee dawlad goboleedka Galmudug ganacsato gudoomiyaha jaamacadda Galgaduud University iyo marti sharaf kale gudoomiyaha xarunta agoonta magaalada Caabudwaaq Daahir Cabdullaahi Jaama ayaa ka warbixiyay marxaladihii laga soo maray hirgelinta xaruntan oo baahi weyn ay u qabeen agoonta ku nool magaalada Caabudwaaq waxaa loo aasaasay agoonta Caabudwaaq kadib markii la arkay baahi fara badan oo agoonta u qabaan in la caawiyo maadaama uusan magaalada ka jirin markaas iskool agoonta u gaar ah agoontuna ay dulsaar ku ahaayeen intii jaana soo heshay iskoolada lacagta oo magaalada ka furan bareefadyada ah ayaa dad indheergalada oo isugu jira gurbajoog iyo kuwa dalka joogaba waxay arkeen baahi loo qabo in agoonta laga caawiyo xagga waxbarashada ilaahay mahadii iskuulkan ayay aasaaseen iyagoo dad fara badan ay gacan ka geysteen iskuulka waxaa la aasaasay 1 bishii Abriil 2016 sanadkii labaad ayuu hadda gelayaa wuxuu isugu jiraa fasalada noocyadooda kala duwan ee wiilal iyo gabdho waa isugu jiraa waxaa ka faa'iideysta dhammaan degmada Caabudwaaq iyo agaarkeeda dhammaan xaafaduhu magaalada ay ka kooban tahay waa ka faa'iideysta qof kastoo agoon ah magaalada dhinacyadeeda dhammaanteed buu ka soo aadaa intii jaana soo heshay dadkaas waxaan leenahay saas uga qayb qaatay ilaahay mahada ka gaarsiiyo intaas ka bacdigeed iskuulka sida arkaysaan hawl badan baa laga soo qabtay waxaa la marka hore la sameeyey agabkii iskuulka oo dhammaystiran markaas ka bacdi waxaa lagu bilaabay qoristii ardada dabadeed waxaa la sameeyey ardada intii suuro gashay in wax loo bilaabo markaas ka bacdi waxaa ayaantii hore lagu waday ilaa iyo mar dhow in ardayga la siiyo uniformka wax ku baranayo boorsada wax ku buugaag ku ridanayo qalimaanta waxaasoo dhan iskuulka agoonta uu saaraa la'aan hadduu ahaa dhinaca kale firiib uu ahaa culays badanna waa iska jiraayo wax dad muxsiniina ay ka soo ururiyaan dad ayagoo kala weeye waxyaabaha ugu badan oo hadda u baahan yahay waxaa ka mid ah sidaa ujeedaa gurigu degan yahay waa guri kira oo isagu uusan lahayn waxaa kaloo jira oo baahi weyn loo qabaa in looga helo agabka oo mar walba garanka dhaaro iska burburaya maadaama ay wixii ilma yihiin oo kuraasta mar walba dayactir u baahanaya macallimiinta oo kordhin u baahan maadaama ardada aad u badan tahay waxaan ardada badnaanteeda hadda keenaya iskuul kaloo agoonu leedahay oo lacag la'aana magaalada kama jiro marka ardada markastoo ay badato waxaa loo sii baahanayaa macallin baa loo sii baahanayaa qol uu wax ku barto arday la geliyaa loo sii baahanayaa agabka wax ku baran lahayn baa loo sii baahanayaa waxaan dhihi karaa marka baahida iskuulka agoonta ee maamo orphan school waa baahi joogta oo maalin ka dambeeya sii siyaadahaya wax badanna waa la qabtay dad fara badan baa ka faa'iideystay oo intaad arkaysaan iyo kuwo kaloo meelaha waxbarasho aad marka waxbarashadu u baxdayba kuwo kaloo horlan hadda waa wadnaa marka waxaan leeyahay dadkii hawshan ka qayb qaatay aad iyo aad u mahadsan yihiin hawsha weli waa sii cumar marka dambaysa waa sii cuslaanaysaa waa sii badanaysaa ardadu baahidu waa sii badanaysaa gurigu waa kiro waa dhowr qolo yaroo iska kooban oo baahida noogu badan haddana haysataa waa xagga guryaha marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhammaan ama reer Caabudwaaq ha ahaadeen ama muslim kale ha ahaadeen ama Soomaali kale inay iskuulka agoonta waxay ka caawin karaan hal qofkii damaanad qaada waxu tarahaya qofkii damaanad qaada waxu tarahaya kursi qofkii u keena waxu tarahaya hal macallin mushaari qofka bixiya waxu tarahaya waxaan ugu baaqi lahaa dadka muslimiinta Soomaalida reer Caabudwaaq dad meel joogaanba iskuulkaas waxaa iskale agoonta islaamka waa iskale agoonta Soomaaliyeed baa iskale kuwa reer Caabudwaaq waa iskale oo jaanis ay ka faa'iideystaan
وعلى waxay ka geysan karaan in ay ka geystaan intii waxay hore qabatay oo ilaahay hadda wada oo ula taagana waxa leeyahay ka daalinina ilaahay agtiisa ajir iyo xasanaad keelaysan nabigu alayhi salaatu wasalaam aniga iyo ku agoonta ka fara qaaday salawaad farood baan jannada ku noqonaynaa manzil fiican baad hesheen oo nabiga jannada kula midowdeen marka waxaan leeyahay dadkaas hawshaas qabtay ilaahay agtiisa wax badan baad ka hesheen annaguna waa idinkugu ducaynaynaa inta kale oo la midkaana oo muslimkaana oo inay waxay ka geysan karaan ay ka geystaan baan ugu baaqahayaa inta horena waa u ducaynaynaa wasalaamu calaykum qaar ka mid ah carruurta agoonta ee wax ka barta xaruntan oo ay ka muuqatay sida ay ugu faa'iideen muddadii ay furneyd xaruntan ayaa goobta ka hadlay مرحبا يا قيردا مرحبا يا قيردا الله يعد الله الخالق الله الواحد الله الخالق محمد نبينا محمد رسول الله محمد نبينا محمد رسول الله علمنا القرآن علمنا الإسلام علمنا القرآن علمنا الإسلام نصلي في الخشوع نصلي في المسجد نصلي في الخشوع نصلي في المسجد السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام شكرا يا أمي شكرا يا أبي شكرا يا أمي شكرا يا أبي أهلا 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 وسهلا أهلا 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 وسهلا الحمد لله لله الحمد والشكر الحمد لله لله الحمد والشكر يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجعل العمى سعيدا اجعل العمى سعيدا وكثير البركات وكثير البركات وعن العقل وقلبي وعن العقل وقلبي بالعلوم النافعة بالعلوم النافعة وبفهم للدروس وبفهم للدروس وأداء الواجبات وأداء الواجبات نوذي ناجيب فريضة إله نوذي ناجيب فريضة إله نوذي شهدنا نحني نعباس بست إله نوذي شهدنا نحني نعباس بست إله نوذي لعلي واجبري عسما كنا إله نوذي لعلي واجبري عسما كنا إله نوذي لقشي عرتي أنا اللهم لدني إله نوذي لقشي عرتي أنا اللهم لدني إله نوذي لالقي قبيلتنا في يوم إله نوذي لالقي قبيلتنا في يوم إله نوذي نصيب دار النواكي نفول الكيكو يا إله نوذي نصيب دار النواكي نفول الكيكو يا إله نوذي نولي عمل كيسنا عريس ددق لا إله نوذي نولي عمل كيسنا عريس ددق لا إله نوذي وحين الله شيء أرضيبان أنه إله نوذي وحين الله شيء أرضيبان أنه إله نوذي نور يا نبح نصيبان أنه إله نوذي نور يا نبح نصيبان أنه
mahadskale ilaahay oo noo suurtageliyey in aan wax ka barano dugsiga marka labaad waxaan mahadcelinayaa aasaasiyaasha iskuulka iyo macallimiinta ama haddaan iska hadlo waxaan ahay agoon hooyaday ma awoodin in ay geyso waxbarasho laga ah oo la mid noqdo ardayda deriskayga ee si wixii iskuulka u dareeraysa daawanayana ardayda iskuulka u socota ee uniformka xidhan waxaan jeclaan jiray inaan iska raaco laakiin uniform maana qabin ilaahay oo mahadskale waxaan soo kacaa anoo uniform qaba boorso qaba waxaan u jeedinayaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan in ay na garab qabtaan ilaa heer jaamacadeed si aan u noqono kuwo anfaca dalkooda iyo dadkoodaba anu waxaan doonayaa inaan noqdo dhaqtar haddaan noqdo waxaan rajaynayaa in aan taageero agoomaha meel kasta ay joogaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay xafladda furitaanka sanad dugsiyeedka xaruntan agoonta ayaa isku raacay in laga wada qayb qaato gacan qabashada carruurtan agoonta. dad educationist aqoon-yahan ah runtii sida gudoomiyaha iskuulku ka sheekeeyey ardayda marka la eego boqolkiiba inta awooda boqolkiiba 30 meelahaas wax la mid ah waxay dulsaar ku hayeen iskuullada magaalada ka jira oo idil oo u qaybsanaayeen qaar iskuulku ka dhaafa fiiga iyo qaar laga qaado dhibaato ku keena oo hooyooyinkooda la daala dhacaan iyo qaarba nooc bay ahaayeen boqolkiiba 70 waxbarasho ma haysan waxay ahayn dad maaragtay ishag xaafadooda iska jooga laakiin markii la helay kafaalada dadkana kafaalo qaadeen way ku dadaaleen fikradda ay keeneen waxay noqdeen dadkani dad ka faa'iidaysta waxbarta iyagoo weliba sameeyey bilowgii sida aan ka dansanin hadalka inay dharkii uniformkii iyo buugaagtii iyo waxbarashadii intaba ay free oga dhigaan runtii way dadaaleen waxna way bilaabeen magaaladana wax ku badan haddaad daafeeda marto waxaad arkaysaa dhismayaal iskuulla ku magacaaban oo lagu magacaabay agoon baa magaca lagu dhisay leeyahay ama qaarna qabiyahay qaarna dhamaystiran yahay agoontiina waa kuwan waxay ku jiraan guri kira ah oo aan maaragtay ay maalin kasta macallin ama laba macallin mushaarkood lacag ka bixin lahayd baa kirada guriga lagu bixiyaa ama wax kale loogu bixin lahaa dadka dhismayaashaas gacanta ku hayo dhis waxaan leeyahay ilaahay idin abuurtay ka cabsada waxay aad u dhis magaca dad lacagtan adig kumaliideen dad baad ka soo qaadeen dadkii aad ka soo ururiseen ama magac qabiil uga aruuriya ama magac noocaad uga aruuriya magacaad uga aruurinaysan wuxuu ahaa magac agoomeed agoontiina waata ilaahay ka cabsada oo mideeya dhismaha dhiseen agoonta u dhisteen iyo agoonta sii isu daaya ha hor istaagina dan urur ha hor istaagina dan qabiil ha hor istaagina dan gaar ha hor istaagina iskuulka ardadan iyo iskuullada la dhiso magacyada agoonta lagu dhisay hala mideeyo taas waa mid waa dardaaran waxaan si xoogna dardaaranka u jeedinayaa dadka qurba joogta oo daawan doona oo deegaankan ka soo jeeda oo lacagta laga qaaday lagu dhisay dhisme oo lagu dhisay magaca agoomeed agoontii waatan halkani taagan tahay gurina ma haysto guryihii lacagtiina lagu dhisana way bannaan yihiin oo dameera ku xarooda ama ku xaroon doona haddaan carruurta loo dayn waxaan leeyahay marka hala mideeyo dhismayaasha magaca agoomeed lagu dhiso carruurda ku yaalla iyo agoonta hala mideeyo taas waan ku celinayaa aad baan ugu ambiilkaas ama baaqaas u jeedinaya baaqa waxaan mar u jeedinayaa dadka horboodaya inay ilaahay ka cabsadaan agoontii dhismaa mideeyaan dadka lacagta laga qaaday oo magac qabiil looga qaaday magac shaqsi looga qaadayna waxaan leeyahay lacagtiinii guryihii lagu dhisay ciid wax kuma barata agoontii oo loogu talagalay waad wax ku baran lahayd hala mideeyo si ay lacagtiinu mirdhal u noqoto oo sadaqa jaariyaha in idin noqoto ajarka heshaan boqolo baxdeen aad ajar uga heshaan taas waxaan leeyahay dhismayaasha magaca agoomeed ku dhisan oo degmada waxbada ku yaalla dadkii dhisay ee kuwii ka qayb qaatay ku taqaano ku bixiyey ayaan intaa usoo jeedinaya inta kale waxaan leeyahay dadkii abaabulay oo qorshaha sameeyey runtii qorsho wuxuu ku bilo marka hore si soomaalidana dee caadifi ah oo markii wax loo soo jeeday horay u qaadaaba waad bay ula boodaa si caadifi uu ku bilowda xoog ah oo aad baa loogu sacabtimo loo soo dhaweeyey kadibna wuxuu daxoo inuu sii daciifayo laakiin waxaan leeyahay dadkii hawsha bilaabay ha daciifina markasta guushu markaad meesha maraysan bay idinkaga sii dhowdahay ajarka ilaahay xaggiisana subxana wataala waad ku sii koraysaan ha daciifina dantu hadday idinku kalifto waxaad samaysaan qaaraanka xitaa dad gudaha jooga kusoo dara dadka dibadda joog qaaraankiina ha ka daciifina dadkii wax ku bixin jira mar wax ku bixiyo waxaan leeyahay nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam khayru alacmaali adwama qofku shaqada uu qabto waxa ugu wanaagsan midda uu annagu iskuulka hooyooyinka ardadan meesha dhigata ka mid ah baana waxaanan ogahay inaan awood u lahayn inaan iskuul lacageed aanan bixin karin inkastoo ardadu carruurtayda badan tahay laakiin waxa weeyaan qaarna
aan ku awoodi waayay inaan wax ka bixiyo qaarna aan helay iskuul lacag la'aan waan ku farxay waayo waxa weeyaan awoodayda ma heli karin inaan kulligood inay wax wada bartaan qaarna waan geysta qaarna waa ka reebta laakiin waxaan helay iskuul lacag la'aan maantaasna ilaahay baa iskala iyo intii meeshaan ka noqotay yani soo abaabushay waxa weeyaan waxay u baahan tahay marka hal sana iyo xoogaa buu furan yahay iskuulaadka bilmadiisa kutiiteesa saasay isu wada taxan yihiin waxa weeyaan arday badan waxaa jirtaan la qoray aan helin hadda deeqdii waxbarasho taasna waxaa weeya keeni karta iskuulkii oo ah guri ijaar oo 3 qol kaliya ka kooban ardaydu ay badan tahay marka kuwii birimadii markay galaan suuntadii meelay galaan birimadii kale meeshay galaan sababtoo waxaa keenaysa gurigii oo ijaar marka waxaan ka codsanayaa jaaliyaasha dadka muslimiinta deegaanka dadka degan in ay yani ballanqaadeen ay dhammaantoodba ay nasiyaan deeqihii ay noogu ballanqaadeen bacda salaan wuxuu yidhi waa baryay sacaba laguma dado halkaa dadkii aasaasay way arkaan waxa ka muuqda kuwii aan arkin asaaskaa ka warqabinna hadda waa arkaa waxaa la yidhi meel hoo u baahan hadal wax kama taro waxa ilaahay ogyahayna ogaan waa ka hadhan tahay meeshaan waxay u baahan tahay kaalmo qofka bini'aadamkaa markuu maalmaha uu transitka adduunyada ku yahay asaga ka hormarta bacdigeedna aakhirada uga sii hormarto oo wax ku tarta waxaa ilaahay ballan qaaday ballanqaadka ilaahay wax ka weyn ma jiro meeshii wax laga bixiyo inuu buuxiyo ilaahay asagaa ballan qaaday marka waxaan odhan lahaa qofkii wax la baxaya inuu ku samro oo ilaahay ballanqaadkiisa qaataa muhiim ah waxaan maqli jiray marka qofku inuu wax bixiyo rabo ninka odaga ah ibliiska ama shaydaanka oo dadka bini'aadamka lagu intixaayo wuxuu ku leeyahay waxa bixin ha diibin ha yeelin soomaalidu waxay geesi u taqaanaa ninka wax dila oo dadka laaya u taqaana laakiin xagga sharciga geesi waxaa la yidhaha qofka saxiiga ah oo wax bixiya oo wax bixinta geesi ku ah meeshaanna qofka hadda loo sheegaya waxa weeye waxaad iska xijin lahayd naarta aad garab uga dhigan lahayd weeye dadka halkaa taagan oo yararka agoontaa ilaahay agtiisa iyo adduunyadaba sharaf buu qofkii wax ku bixiya helayaa runtii dad baa waxaas oo agoona oo dadka sugaya oo dadka uu xilku ka saaran yahay dad baa intaa u dhabaradaygaya waxay mudan yihiin in loo mahad celiyo waxayna mudan yihiin in la garab istaago ayay mudan yihiin dadka hawshaa naga xil ninbaa 24 saac u taagan ninna hadduu xoogaa yar bixiyo in yar inuu bixiyo waa dhibaato inuu bixin waayo haddaan halkaa ka gudbo waxaan la socdaa runtii baahida ugu badan oo hadda maamulku uu ka hadlay waa kirada guriga weeye waayo ilmuhu hadduu guri kira la'aana hadduu ku jiro waxaa laga yaabaa macallimiin iyo wuxuu qarashku ama inuu iska yaraado ama macallimiinta laftirkoodu mar haddaan kira guri la weydiinayn waxaa laga yaabaa inay waqtigooda sadaqeeyaan oo wax baraan ayaga laftirkooduna waxay noqonayaan dad hoy leh oo weheshanahayo hoygooda waxaan la socdaayoo hadda ka hor aan dhagax dhignay xarun uu iska leeyahay iskuulkan maamo orphan school oo dhul ah oo qaarna loo gaday ayaanu ogsoonnahay mar hadday saas tahay gacmo wada jirba wax ku gooyaan kulley guryaha hadda laga hadlahayo dadkii dhisay qorshe la'aan uma dhisin laakiin waxaan leeyahay kuwaan agoontuna waa badan tahay qorshayaashu waa badan yihiin laakiin waxaan leeyahay kuwaan hadda dhulkooda ah dadka muxsiniinta ha u dhisaan oo xil ha iska saaraan ilaahayn baan idinku dhaarshay inta joogta iyo inta hadda idaacaddan dhagaysan doonta iyo telefishinkan arki doonta wiilka yarkaa oo hadalkiisii qofkii damiir lagu danqinaya waayo wuxuu yidhi waxaan hor fadhihi jiray gurigayaga marka ilmuhu ay u dareerayaan iskuulladooda walwal ayaan ku noolaan jiray waayo subax walba ilmihii oo uniform qaba ayaa i hormari jiray war ilaahayn baan idinku dhaarshay ilmahaas ma waanaan islaamka aan sheeganayna waxba ka jirin miyaan ilmaha hadalkiisu qofna danqin karin walwal qof subax walba walbal ku nool
waxbarashadii iyo ilmihii qayrkiisaha ee laga yaabo maaragtay inuu subax walba uu raaci lahaa oo ka haray awood darro awgeed ilaahay waa ku fiirsanayaa dadka waxaan leeyahay walaalayaalow inteeda joogta iyo inta maqanba arrintaas waa arrin weyn weeye waa la isku ciqaabayaa runtii kasoo qaybgalkaygaanu aan imid maxaan ku leedahay maantay furitaankan aan la qaybsanayo farxadda ilmahan agoonta ah waxay ii leedahay dareen gooni ah waayo anigu waxaan ku soo koray agoonnimo marka waxaan garanayaa qof kasta oo garab istaagay markaan ahaa agoonka iyo duruufihii aan soo maray waxay u tahay runtii fursad ayaga maantayta in la gacan qabto oo la garab istaago si ay mustaqbalkooda oo aysan hadda haddii aanan gacan qabanin ay dhici karto meel mugdiya inay gasho in ay ayaga fursad u tahay isla markaana waxaan dhihi karnaa dadka raba inay wax sadaqaystaan oo wax la baxa waxay u tahay ayagana fursad waayo qofka agoonka ah dadka waxay ka mid yihiin awaa'ilka oo wax lagu sadaqaysto ugu dambayntii ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada caabudwaaq muuse axmed maxamed muuse inji iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdulaahi colaad hadda halkaan maamulku kaga warbixinayay oo tiradoodu dhan tahay 120ka oo guriga kirada ku jira oo loo ballan qaaday inay wax baraan oo macallimiintu har iyo habeenba u taagan yihiin oo guri kiraa ku jira oo maaragtay ay ballan qaadeen muxsiniin warbajoog gudaha iyo dibadda ay u ballan qaadeen inay bixiyaan imkaaniyaadka ku baxaya oo kooban ama ha noqdeen maaragtay uniformka ama ha noqdeen qalabka agabka waxa lagu barahayo ayagana waxaan leeyahay alla ka sokow aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inkastoo agabkii iyo boorsooyinkii iyo waxbarashadii ay mataqaanaa ilmaha u dhantahay haddana mushkilad jirtaa waxaa weeye goobtii wax lagu bari lahaa in ay lala yahay ay ku yartahay guriguunu kala yahay qolashuu yar yihiin ardadu soo badanayso xil baa ka saaran waxa weeyaan mar haddii agoon la sheegay waad maqasheen oo qofka agoonka madaxa u salaaxa ilaahay subxaana wa tacaala ajar buu siinayaa hadda qofka wax u qabta na asagoo xaggu ka sii jiraa nabarka meesha yaalla waxaa waayaan in iskoolku uu ku yaryahay oo haddana uu tira yahay marka waxaa loo baahan yahay meel ay wax ku bartaan waana jiraa meel la dhishay xarun agoonta loo dhisay baa jirta xaruntaa dad islaama oo ilaahay ka cabsanayaana gacanta ku haya waxaan jeclahay insha allah si qurux badan inay dadka agoonta waaqwaan ay ugu soo dhaweeyaan haddii barnaamijyo kale ama howlo kaleeto oo lagu talagalay dhul baa jira sida la sheegay dhulkaas aan ka qayb qaadanno waxaan la hadlayaa dadka jaaliyadda ah oo jecel inay mar walba u qabtaan dadkooda waxa weeyaan waxqabadkiina waxbaa ka dhiman haddii ina agoonta waxba u qaban guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegaynay munaasabad lagu furayay sanad dugsiyeedka 2017 ee xarunta agoonta ee magaalada caabudwaaq barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ayaalla cabdulaahi jaamac intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doonno ammaano allah awood allahaye ajarna waxa laga helaa ubadka aabbahaanahay agoonta itaalka daran ammaanaynagu yihiin awood allahaye ajarna waxa laga helaa ubadka aabbahaanahay agoonta itaalka daran ammaanaynagu